هي maanta inaan soo booqday oo aan soo booqday ciidanka asluubta oo aan ahay ciidanka kaliya oo ah ciidanka kaliya oo aan aqaano oo wax iga soo barbaariyay wax yar yar rabaana wax kaga sheego intaan dadka salaamin ka hor wiilkii yarka ah horta wiilkii yar أو معلمتي أو فاروق تورستاي waxaan ugu yeeray wiilkan kullayba hadda waxaad ku jirtaan barbaarinta agoonta oo runtii sidii ahaan jirtay awalba dadka saboolka carruurta in laga qaado oo loo barbaariyo loo koriyo waxbarasho loo siiyo nolol loo siiyo waxaan ka codsanayaa dadka barbaarinaya intaysa seexan carruurtan calooshooda inay taabtaan horta maxaa yeelay ciidamada suurtay ahayd iyo taliyaashii la foolay joogi jiray allah ha naxariista qaarkood waa dhinteene calooshiina insaas u taaban jirin sidii aabbayaasheen oo kale yaan ugu sheegi jirnay inaan gaajaysan nahay iyo dhibkaan qabno iyaguna waxay noo xanaanin jireen sidii carruurtooda oo kale marka wiilkaan iga warqaba taliye waa mahadsan tahay sarreeye guud bashiir runtii sida sharafta leh aad halkan igu soo dhaweysay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiirka cadaaladda jenaraal cabdullaahi elkajiir xeeralaaliyaha halkan maanta nala jooga iyo guud ahaan dadka nagala soo qayb galay xafladan aad igu soo dhaweyseen sidii sharafta leh aad igu soo dhaweyseen kulligiina waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii hawsha haysaan waa hawl aad iyo aad u culus maxaa yeelay keliya ma aha idinku hawshiina inaad maxbuusyo aad ag taagan tihiin keliya ma aha waxaad qayb ka tihiin horumarka iyo dibudhiska dalka kobcinta dhallinyarada soomaaliyeed oo runtii dee aanan waalidiin lahayn oo dee agoomo iyo ama dad iska tabar daran ah iyo dee wax soo saarka dalka sida anigu aan maanta arkay oo aan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayo sarreeye guud bashiir runtii inta uu joogay ay muuqato hawsha hufnaanta leh ee wanaagsan uu qabtay iyo sida uu rabo in uu uga dhigo xabsigan xabsiyada adduunka laga yaqaano xabsiyada adduunka laga yaqaano waa xaqiiq waa meel ciqaabeed oo de magacii asluub baa la yidhi anshax qofka in la baro asluubta uu bannaanka maaragtay kula joogi waayey dadka kula noolaan waayey in la ciqaabo waa wax jira waaye laakiin dee waa qof bini aadan ah in xuquuqdiisa uu leeyahayna in la dhowrano waa muhiim tan labaadna loo diyaariyo markuu ka baxo wax xirfad ah uu ku shaqaysto oo uu ku noolaado aysan noqon keliya meel lagu hayay ama lagu dhibaayey oo adduunka uga xirnaa keliyasa noqone meel loo diyaarinayo haddii uu ka baxo in nolol fiican iyo mustaqbal fiican uu helayo marka runtii waxaa maanta ii muuqda in ciidamada asluubta ay horumar fiican gaareen horumarkaasna uu ugu horeeyo runtii xanaanaynta iyo dhowrista bini aadamnimada maxbuusta waa dhab ninka maxbuuska ah dembuu soo galay dembiga in laga jaasiiyo oo ummadda laga fogeeyo way tahay haddana in la xaq dhooro oo la ilaaliyo xuquuqdiisa bini aadamnimo iyaduna way tahay marka sidaan arkay dee maxaabiistii telefishinno leh oo meesha dhexdeeda wax ku barta anu waxaan aaminsanahay afrika inaysan ka jirin annagoo weliba 26 sano burbursanayn inaan loo diyaarin maxaabiista afrika inta badan aan ogahay aniga inay tahay keliya meel ciqaaba oo aad loogu dhibo dadka loogu dhibo laakiin annagoo 26 sano burbursanayn sidaan u iri oo dowladihii dee la soo maray ay ahaayeen dowlado dhaqaale xumo iyo duruufo adag ku soo shaqeeyey haddana in la gaarsiiyo meesha ay taagan tahay runtii waxaa iska leh
waxaa iskale abaalkeeda iyo runtii mudnaanshaheeda taliyaha ciidanka iyo dadka la shaqeeyay halka fadhiya maanta aniga marka maxaa igala gudboon hawshaan aad qabateen oo aad meel soo gaarsiiseen oo dawladdii iga horreysana ay meeshaan soo gaarsiisay waxaa igala gudboon kow horta ciyaalka yararka ah oo aad kobcinaysaan in cunto fiican iyo nolol fiican aan siino waxaa kale oo aan ballan qaadayaa oo intaas dheer in qalab fiican oo horumarsan oo runtii aad wax soo saarka dalka aad kala qayb gashaan in hadduu ilaahay yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan aan qaybteeda ka qaadanno oo aan budgetka dawladda ama miisaanka dawladda kugu darno waxaan kaloo ballan qaadayaa bacdama aad ku soo shaqayseen duruufo adag in maxaan idin yidhaahdaa raashinkiinna iyo mushaharkiinnana uu noqdo joogto hadduu ilaahay yidhaahdo weliba intaas waxaan ku dareennaa inaan raadino tababarayaal si fiican u yaqaana kaliya farnijarka kaliya maahee xitaa sida biraha waaweyn loo toosiyo maxaa yeelay dalkan wuxuu u baahan yahay dibudhiska birahana qayb weyn bay ka yihiin dibadaha laguma sameeyo biraha waxaa lagu sameeyaa warshado waxaan ku dadaalaynaa dhinac walba oo farsamo ah oo loo baahan yahay in ciidamada asluubta ay qayb ka noqdaan waxaa kaloo ugu sii muhiimsan markii ugu dambaysay hadda ma aqaano maxaabiista kuwa anshaxa xun waxaa la geyn jiray beeraha lagu fali jiray marka inaan soo celino programkii dadka laaluushka qaata iyo dadka musuqmaasuqa inaan beeraha ku falno si ay u quudiyaan dadka masaakiinta ah ay hantidooda qaateen oo aaminay si ay dib ugu quudiyaan ee carruurtaan yararka ah siday u quudiyaan waa inaan beerihii soo celinno oo aan howlgelinno aysan noqon xabsiga meel lagu nasto ama lagu cayaarama tv lagu fiirsadeen ee noqoto meel shaqo ka socoto qofku waa inuu production inuu sameeyo way qofku wax soo saaro waxay rabtaa ha ahaato haddii rabto cunto ha ahaato haddii rabto qalab ha ahaato waxay rabtaa haatee meeshu inay noqoto meel shaqo ka socoto oo qofkii la soo xiro uusan u imaan sariir u taalla iyo telefishin uu fiirsado hawshaasna idinkaa laydinka rabaa qorshaheeda iyo barnaamijkeeda inaad keentaan waana mahadsantihiin in sha allah waan isku soo noqon doonnaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu